waxyaaba aad iyo aad u qiimo badan waxyaabaha dowladdan Soomaaliyeed ee hadda jirta ee ayada smart ku tahay ayaa waxay tahay yani calaaqad dawliga iyo iqliimiga magartay inay ku firfircoon tahay Soomaalidu dadka qaar sibay iyaga ay uga dhagan tahay oo mucaaradnimadu haddii xataa qofka wax fiican hadduu sameeyo in adiga aad iska tiraahdid mar waliba ya waxun buu sameeyey in adiga la soo boodid wax qiil noqonaya maaha ani madaxweyne farmaajo talaabada loo qaaday in xiriirkii la normalize gareeyo ama la hagaajiyo dowladdan dariska aan nahay ee Kenya arrin aad iyo aad soo dhaweyn mudan waa ilaahay laba dal oo aan kala tagaynin ayuu naga dhigay oo daris ah anaga iyo Kenya sida iyo Saleemada aniga iyo Ethiopia ningartay laba dal ee maanta xurguf xuduudeed inay noo dhaxayso laba ma mooga problem oo in general Africa oo dhan lagu sameeyo gumaysigii inay weligooda madaxa iskula jiraan ku talagalkeedii shaqeynayaan laakiin anaga maxaan ka dheefnay Soomaaliya hadaan nahay dagaalkii 77 Ethiopia nala geliyay dalalkii waagaasi anagana yiri anaga idin garab taagan ee dhabarka naga toogtay haddana qaar baa weli Kenya ku dhex jira iyo Soomaaliya ay jeclaan lahayn marka haddana in la isku dhufto Soomaaliya haddana inta yar ee faynuusta u shidan haddana inay ka danto ama inay Kenya iyo Soomaaliya maartay dhexdooda suuq ooga furmo dadka marka waxa waaye rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu la yulduqu almu'minu marratayn min juhrin waahid ninka mu'minka hal good laba jeer laga wada qaniino Kenya bad waa isku haysanaa maxkamaday jirtaa madaxweynayaasha labadaba isku sibay u cadeeyaan mowqifkaasi lama taabtaan buu noqday laakiin wixii kale Kenya waxa naga dhaxeeya xiriiro oo intaasoo wajiye leh xiriir ganacsi isu socod shacabkii Soomaaliyeed oo maanta ganacsi waaweyn ee meesha ku leh dad Soomaaliyeed oo aanan la soo koobi karin Kenya interestkeeda ay ku leedahay Soomaaliya ayada laftirkeeda maanta madad la oo xalana inta ka shaqeynaysa ee Kenya ku jirto hadda oo ayaga ee ka wada shaqeynayo hoteelada ama macallimiinka gobolada Soomaaliyeed ee ayaga intay ka gaari karaan fursad dadka Soomaalida ee ku nool Kenya isfaham baa ka dhaxeeya waliba qabiilka madaxweynaha si gaar ah farta loogu fiiqayaa Kukuyada iyo Soomaalida waxay noqdeen laba isaga dhow dadkii kale ee meesha wadanka ku noolaan jiray ee horumarka ee Kenya ganacsiga ay ka sameynaysa ee shalay Hindida iska haysatay maanta waxaad arkaysaa gabar Soomaaliyeed gabar Kenyan ah oo Taiwan ma artay isla socdo oo ganacsi ee suuq wax ka keenay hablii Soomaaliyeed baa banaanka xamar waxay awoodi waayeen muddo ayay Ethiopia iyo Kenya ay ka heleen inay dahabkooda ku iibsadaan suuqyada dhexdooda ay noqotay marka dawladda Soomaaliyeed dadkaasna waa inay u fakartaa xiriirkaasi inay u wanaajisan waa u dan Kenyana waa u dan waxaan Soomaa Kenya maslaxadeeda qaadkeeda suuq meel kale uma hayso aan Soomaaliya ka ahayn dib anaga aan ku qabno laakiin Kenya danteeda ayada ay taa beeraha ee qaadka ee mirowga ee maanta dadka mayruuga ah haddii suuq ay u waayaan dawladooda ayaga inay ku kacayaan laba isma mooga laakiin siyaasada kale oo qalabsan oo faragelin indirect iyo direct mid ay Kenya sameynaysa maamul goboleedyada ku xulxuleynaysa dawladdu dad badan baa yaani hadiiba ma artay inta maxamed cabdullaahi farmaajo ee khayr ee aniga aysan ay sameeyaan hatta waxay yaani ay ka dhigteen inay iyaga ay yiraahdaan wallahi hadii Ethiopia iyo Eritrea dhulkaas ay soo xirmeen isha idin furan waa Kenya markaan Kenya ma artay taa laftirkeeda waxa waaye waa siyaasad taktiikeeda wadata waaye oo hadii la yiraahdo Kenya aniga soo dhaxgali maayo counterka Eldoret ama counterka ma garatay maxaa la dhihi jiray Rift Valley ama Nakuru ama Kijada adiga maamul goboleedkayga ee aniga ee Soomaaliyeed faraha hal soo gelin amuraha ee dakhliga ee Soomaaliya laba dawladood madaxweynayaashooda kala hadlay way dad baa intay sanba microphone ka dhiginba miiska hoostiis baa laga wada hadlay wax kala la isla wada gaari oo waxay nimankii shalay marka anaga aan isku xumeyn ee xiriirkeeni meel walba xumaaday ee ayaga Kenya saa ee hatta walaalkeen aadan barado cali ayaga uunsiga hortooda hatta uu ka akhriyay iska sacbinay haddana durbadii waa isbedeleen markii madaxweyne oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay soo saareen statement
in xiriirkii la wanaajiyo oo shalayba adiga waa jecleeda kini ma maxamed cabdilaahi farmaajo uhuru leeshi ma durbadii isu bedeshay marka this is not maartay siyaasad maaha taa